إله كان الصومري كمسحة إله مروذا إله كان الصومري كمسحة إله الصومري كمسحة إله أي مروذا إله مروذا إله يا شعبي يا أهلي يا شعبي يا أهلي براكسن يا أهلي يا شعبي يا أهلي يا شعبي تحنون تيد عاشق عيد وناكسن عيد مبارك يا شعبي يا أهلي عيد وناكسن عيد وناكسن عبد الرشيد علي عبد الرشيد أدي أدبكو سلام يا عيد مبارك سما الله يسمو يسوه وما الفرح له من انتو عيدو عبايا الرين رين سما الله يسمو يسوه انتو فرح دو اقومو مساكين تو فرح دو معديو اقومو أيوة ذا معسومي ليلى أنت إذا عاشقة عيد وناكسن انتو فرح ذو أقوموا مساكين تو قرأتو معسليو أقوموا تحنوني إذا عاشقة لا فيو عيد مبارك يا حبيبي يا هلي يا شعبي يا هلي عيد يا أهلي يا شعبي يا هلي عيد وناكسن آدي بان إذي وضع السلام يا حسن قوليت iyo maxaan ku dhahay saxnuunidayda caashaqa iyo maxaan ku dhahay taleeladayda caashaqa iyo ilaahay kuuma darnaade ee dhammaantiin intiina ku jirto aan magacyadiina arkin sii sheer gareeya aad iyo aad baan idii salaamayaa dhammaantiin waxaan u baahanahay inaad u ducaysaan jooqle ilaahay subxaana wa tacaala lugihiisa ha ku istaajiyo codkiisa ha u furo dembigiisa ha dhaafo cadaabta ha ka xoreeyo asaga iyo intii islaam ah oo xanuunsan jooqla shire aad iyo aad baan u jeclahay waa nin wadani ah ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa codkiisii macaanaa oo ugu hiilin jiray qarankiisa ilaahay inuu u furo lugihiisana ku istaajiyo dembigiisana dhaafo ciidan ciideeda kalena asagoo soconaya aan aragno iid wanaagsan aadan cali iid wanaagsan aad iyo aad baan kuu salaamayaa aadan caliyow dhammaantiin aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaantiinna waxaan idiin weydiinayaa ilaahaygii subxaana wa tacaala ahaa oo na abuuray oo awooddaasna siiyey aan ku hadlayno oo xoogga ina siiyey oo muslimka naga dhigay waxaan idinka baryayaa inaan iidan iidiisa kale caafimaad ku gaarno iyo dambi dhaaf ilaahayna inuu cimri dheer iyo caafimaadna siiyo awlaadana noo xafido ummadda soomaaliyeedna ilaahay inuu qaluubtooda isku soo jeediyo dhammaantood oo mideeyo
xoog iyo awood iyo quwadna ilaahay subxaana wa tacaala ay iskaga celiyaan cadowga sokeeyaha iyo midka shisheeyahaba ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu siiyo midnimo iyo quwad iyo awood ummadda soomaaliyeed meelay joogaanna ilaahay madeeyo ciidan ciideeda kalena ilaahay baan waxaan ka baryayaa ummadda soomaaliyeedoo mid ah ilaahay inuu na tuso annaguna aan jannada ku kulanno intaasu waa ciiddii iyo ducadeedii iyo rayrayntii maanta waa maalin aad iyo aad u farxad badan ilaahay subxaana wa tacaala maalintii aan soonnay kuwii loogu dambi dhaafo oo laga aqbalo ilaahay ha naga dhigo ducooyinkeyga qaali saleebaantayda caashaqa naa qaali qumaney walaaley waxaan ku eri oo qaali qumaney walaaley waxaan ku eri gabadha reer garaaday garasho dheeray waxaan ku eri gabadhii reer garaaday garasho dheeray waxaan ku eri inaad eray ciid wanaagsan oo caafiyaad iyo carruurtaadaba yaa insha allah jooqlo ilaahay ha caafiyo saxnuunidayda caashaqa intaas waa intaas waa la kala mirmay ilaahu mililqahay raacsin ummadda soomaaliyeed maxamed cabdulaahi farmaajo maalintii la dooranaya 8 febraayo waxyaalihii u ballan qaaday waxay ahayd inuu ummadda soomaaliyeed shacbiga soomaaliyeed la duudsiyey ilaa maalintii ay qaateen xornimada oo u hiilinayo garabna istaagayo hadday asaga soo ceshanayaan iyo haddii ay qof kala dooranayaanna ay codkooda ay ku ciil baxaan awooddana uu gacantooda ku soo celinayo dhalinyarada soomaaliyeed aad iyo aad wuxuu ugu ballan qaaday maxamed cabdulaahi farmaajo inay yihiin 75% xoogga dalka inay yihiin awooddooda inuu muujinayo oo isa 10 nin iyo 15 nin oo ku mabay waddankan ilaa iyo 60kii markii la qaatay xornimada in aysan ka talin doonin jeebkana ku ridan doonin odayaal maxaan ku dhahay ciday matalaanba aysan jirin oo qaarkood kuwa waqooyi ka yimaada aysan xataa waqooyi ku laaban karin kuwa qaarkoodna maalinta ay xildhibaankaa soo doortaan ay isugu dambayso al-shabaab qaar soo door maxaan ku dhahay usoo hanjabo oo yidhaahdo ninka annagu rabno noo door waa odayaasha haddii aadan ninkaan rabna noo dooraynaa dee adaa yaqaana meeshaad aadaysid nin lacag qaatayna ninkuu lacagta ka qaatay ajandihiisuu fulinayaa wuxuu sii diiranayaayoo kale ummaddii soomaaliyeed nin lacag bixiyey oo lacagtuu bixiyey wuxuu ka raadinayaa ummadda soomaaliyeed dhowr iyo 10kii sano ay dowladnimada soomaaliya dhisnayd ama 20kii sano 20 sano meelahaasay dhisantaan u malaynaya cabdiqaasin markii lagu daro 2000 baa la soo dhisay ciid mubaarak cilmi waxaan la istaagi weyne cilmi jaamac dhaga weyne inaad ara ciid mubaarak ilaahay subxaana wa tacaala ha ku xafido waxaan la istaagi weynay dad aan masiirka soomaaliya inay ka taliyaan ama macnihii u lahayn xaq inay ka talinayeen 20kaas sano shacabkii soomaaliyeedna ay daawado ka noqdeen maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisaba maxamed xasan cali khayre waxay maalin kasta ay dhihi jireen shacabka soomaaliyeedna garab istaaga sidaan awoodiina ugu soo celinno gacantiina si aad u heshaan dowladnimo xoog loo adinka idiin adeegta shacabka soomaaliyeed been alla caayay way la shaqeeyeen dowladda inkastoo sidii la rabay aysan shacabka soomaaliyeed dowladda aysan u garab istaagin sababtoo ah shacab soomaaliyeed oo badan oo ay ka mid yihiin ay ugu badan yihiin kuwa dowlad goboleedyada ama maamul goboleedyada qabiilku uu sameeyey oo Ethiopia ay samaysay ee lagu talagalay waddanka in lagu kala tuuro lagu kala googooyo maamul goboleedyada qabiilada baa ugu darnaa shacabkaasi ma ay maxaan ku dhahay garab istaagin dowladda waxay ka baqayeen maamul xaafadoodyadooda qaarna qabiil bay ku garab istaageen waxaa la rabay banaanbaxyo inay iskugu soo baxaan codkooda muujiyaan diidaan waxa ay wadaan maamul goboleedyada oo ah inay xaqooda duudsiyaan oo 10 nin oo kooban ay ka talisa masiirka 20 milyan
toban ama maamul goboleed ha joogo ama maxaan ku dhahaa baarlamaan ha sheegto ama maxaan ku dhahaa wixii ay dhihi jireen saamilay siyaasad ha sheegto ama siyaasi hore fashilmay ha noqdo waxay ahayd shacabka maamul goboleedyadu intooda badan ma ay garab istaagin dowladda Soomaaliya ayaga dantoodii baana ku luntay waxaa la rabay inay garab istaagaan laakiin shacabka reer Muqdisho way garab istaageen been Allah ay xoog iyo hiilba maadaama dawladii ay ayaga la joogto ay meeshii ay ka duuleysay ay tahay la isma xaqiro way garab istaageen barnaamij bay ku garab istaageen af bay ku garab istaageen cashuurtii bay bixiyeen in kasto ay gaarsiisneen cashuurtu intii la rabay way bixiyeen dad shacabka reer Muqdisho cashuurtii xaq baana loogu lahaa inay bixiyaan ma fahmaysaa dhalinyarada reer Muqdisho intooda badan ciidan bay qoratay hadda Muqdisho ammaanka ka jira maalintii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u habar wacday dhalinyarada 14 Oktoobar ka bacdi magaalada Muqdisho maalinta ka dambeysay way soo hagaagaysay sababtoo ah dhalinyaro badan oo reer Muqdisho oo luqluq magaalada u kala taqaana baa waxay qoratay ciidamada ammaanka taasna waa ku hambalyeynaya saxnuunidayda caashiqa aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya dhalinyarada ciidanka qoratay ee ammaankii Muqdisho wax ka bedeshay 14 Oktoobar wixii ka dambeeyay aad iyo aad bay u fiican tahay ammaanka magaalada Muqdisho intaas markaan intaas uga gudbo ummadda Soomaaliyeed ee shacabka ah waxaan u baaciid wanaagsan soo xildiidayda caashiqa waxaan u baahanahay ummadda Soomaaliyeed maxaad rabtaa adigu nin adiga kula qabiil ah wuxuu rabaa kursi inuu helo siduu raba ha ku helo imaaraad lacagta ha siiyo Kenya oo badayada iyo maxaan ku dhahaa dhiigayaga iyo naftayada ku soo haliilaysa iyo dhulkayaga ha siiso lacagta ay dhalay ha siiyo Tigreeg ha soo siiso Yuhuud ha soo siiso lacag buu rabaa inuu ku gato oday aan tagi karin fiiri oday aan Burco iyo Hargeysa tagi karin dad baa waxay ku doodayaan Somaliland maxaan ku dhahay xildhibaanadoodii xagee laga soo dooranaya waa in odayaal soo war odagaani Hargeysa iyo Burco ma tagi karo wiilka dhalinyarada laakiin oo xamar jooga iyo islaanta hooyada iyo midka maxaan ku dhahay xamar jooga iyo kan gaalkacyo jooga reer waqooyiga iyo oo garowe jooga boosaas meel walba jooga oo koonfurta Soomaaliya wuu tagi karaa waxna wuu ka bedeli karaa asagaana ka miisaan culus oday la yaqaano oo al-shabaab daawanayo oo maxaan ku dhahay miisa biixi dhinac ka daawanayo oo markuu Burco intuu xildhibaankii doonto ku noqdo ama Hargeysa ku noqdo aan waxba ka bedeli karin tagiba karinba ugu yaraan 1 milyan oo reer waqooyiga joogta koonfurta Soomaaliya yaa fiican 13 oday oo reer waqooyiga inay doortaan xildhibaanada iyo inay doortaan mahalka milyan ee reer waqooyiga ee koonfurta Soomaaliya joogta iyo reer koonfur oo lagu daray yaa fiican oo mandate haysta waxa mandate haysta ninka 1 milyan ee reer waqooyiga ee koonfurta Soomaaliya joogta iyo ka badan walibana ay doortaan marka shacabka Soomaaliyeed adiga xaqaaga nin duudsinaya oo qabiilkaaga laakiin kursi raba kursigaasna raba adiga inuu kugu dhaco oo adiga kugu dilo oo 20 sano fadhiyay inaad garab istaagtid iyo inaad dantaada garab istaagtid inaad adigu qofkaad rabta doorato gacantaada ku doorato ama adiga lagu doorto dhalinyarada Soomaaliyeed haddii odayaal wax dooranayaan iyo oo wax baratay oo jaamacadaha ka baxday xildhibaanna ma noqon karo wasiirna ma noqon karo agaasimana ma noqon karo adaa mudan soo xildiidayda caashiqa aad iyo aad ba ku salaamay ma noqon karo laakiin maalinta la yiraahdo hal is doorto 70% waa dhalinyaro wadankan aan anigu joogo waa wadan ciid wanaagsan habar yar gabadhaydii nadiifo yuusuftayda caashiqa haba macaan aad iyo aad baan ku salaamaya soo dhawow ciid wanaagsan ciid mubaarak wadaniyadayda qaaliga habar yar libaaxad baa tahay ilaahay ha ku xafido ilaahow la kala miiraya milq hay raacin marka waxaan leeyahay war adiga qofka dhalinyaradayo ama sool iyo saraag joog ama maxaan ku dhahay bari iyo nugaal joog
ama gada iyo maxaan ku dhahaa tujubada hoose iyo tujubada dhexe joog ama bay iyo bakool joog ama banaadir joog ama maxaan ku dhahaa to ilaahay kuuma daraacda burca iyo hargeysa joog waxaad samayn kartaa adoon shilin lacaga bixin inuu ku doorto wiil kale oo dhalinyaro iyo hooyo Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed inay ku doorato oo ku soo baxdid adigana shilin lacaga markaysa ka bixinin wadankii la jeclaa ka qabanaysa waad u shaqeynaysaa ilaa cidna kuma soo dirsanay dadka lacagtaad bixinaysa ku soo siiyay waa dad adiga kugu shaqaysanaya nin lacag uu ninka odaga lacagtu siinayo dadka soo siiyay buu u shaqeynaya oo ma shaqeynaya dhalinyarada Soomaaliyeed oo ma shaqeynayo hooyooyinka Soomaaliyeed ee balaanbalay ee qoraxda ku iibinaya yaanyada oo ma shaqeynaya habarta masaakiinta ah ee u baahan mustaqbal inuu helo wiilkeedii ay 20 sano yaanyada suuqa ula fadhiday oo iskuul lacag la'aan aan haysan oo dhakhtar lacag la'aan haysan la kala miiray ilaa tuugada caalamka hana kala raacin beel caalam wax la yiraahdo ma jirto waa criminal gang weeye wadamada burburay iyo wadamada soo koraya bay isku dayaan hadii aan la helinin rag ah oo iska celiya oo maxaan ku dhahay hor istaaga iyo shacab garab istaaga raggaas sababtoo waxa la yiri inkastoo nin geesiya raggu adeeg yahay hadaan garabka lala qaban guri oodimaye hadaan la helin rag iska celiya tuugada caalamka iyo shacab garab istaaga waxa weeye waad dhumaysaa tuugadaas caalamkana waxay ku shaqaysataa tuugo midabka Soomaali ka ah laakiin aan qalbiga iyo damiirka Soomaali ka ahayn waa nimanka ku dooda maalin walbaba reer Muqdisho kaliya haday codeeyaan xataa baa ka fiican oday meel uu tagi kara aysan jirinin oo lacag la siiyay oo maalintaas uu ninka soo doorta ay ugu dambayso oo aan la xisaabtabayn oo la xisaabtabi karin ilaa waa rag wax kala gatay adigi baa la ku kala gadanaya rag wax kala gatay adiga kuuma darayn ayaga wax kala gatay dhiil tu dhiil weeye waana la kala tuurto waana la kala tagay kabacdina dhiigaaga laga garacsanaya ninkii wax soo gatay ee odagaan uu soo jafjaftay malaayiinta lacagta soo siiyay adiga dhiigaagii buu rabaa inuu silinga surto xaafada hoodan iyo kaaraan iyo dayniila iyo maxaan ku dhahay tahal wadaag iyo shangaani baa ka fiican 7 xaafadood oo Muqdisho kamida oo 7 maxaan ku dhahay 7 goobood laga doorto xildhibaanada dhan oo Soomaaliya in oday bari al-shabaab baa soo dirsaday haduu rabo al-shabaab baa u hanjabaya oo dhahaya wariyaa shalayta lacag baan ku siinay dhiil baan galnay adeer macaan ninka anaga noo shaqeynaya ee xildhibaanka ah ee waad arkayseen niman xildhibaana oo baarlamaanka dhexdiisa al-shabaab uga doodaya waad arkayseen ee sharciga argagixisada 4 sano la soo dhaafay barkii inay diideen xildhibaanada qaarkood illa asaxiyo al-shabaab bay u shaqeeyaan sababtoo lacag bay ka qaateen dhiil bay meesha ku yimaadeen adiga dantaana kuma imaan adiguna maada dooran ninkii soo doortay u shaqeynaya nin dhan oo leh wiilasha qoortaha laga jaro hadii kale biil ma helayno qasaar badana nadiifo wiil ninkaas dhahaya shalayto ninkii dhahayay maxaan ku dhahay to Garowe dhahayay baarlamaan waxaan nahay wax la yiraahdo Puntland ama maamul baan nahay dhahayay wiilasha maxaan ku dhahay badooda loo diiday ragga ay ka iibsadeen kalluunkii kalluunka yaga xaalufiya Shiinays leh Iran leh balaayo leh Belgium leh ay kalluunkii iyo macdanta ay ka iibsadeen wiilashii ka shaqaysan jira badda waa inay tahriibaan sababtoo asagu dantiisu ka hadlaya ninkii soo dirsaday oo lacagta siiyo meesha keensaday reer Puntland iyo reer maxaan ku dhahay Sool iyo Sanaag iyo reer Bari iyo reer Mudug ninkaas meesha ma keensan ninkaas sidoo u hadlaya dhab ah runtu ka hadlay waxa keensaday meesha ninkii lacagta soo siiyo haddana lacagta siiya laakiin adigu hadaad canshuurta siisid oo maxaan ku dhahay tatakadaaga aad u tashatid oo shacabku isgarab istaago oo dawladnimada la quweeyo oo ciidanka Soomaaliya ay badaha ilaaliyaan oo annaga kalluunka iyo aargoosatada ay guranayaan nimanka soo kireystay nimanku u hadlayo wallahi haba hadalka waa ilaawilay wax la ilaawi kara ma
qoorta laga gooyo yiri canshuur dawlad laga qaada shacabka ma ahan biir waxaan qaadano mikrofoonadan ku hadlayna imaaraad bana siiyo yiri hadal cad buu sheegay ninkaasu shacabka waa u hili laakiin runtu u sheegay laakiin shacabkow hada aqli migiime qabyaalad bay ugu hilinayaan ninka dhiigooda banaynayay qabyaalad ugu hilinayaan ninkii dilayay bay u doodayaan nabad bayaw doonay Soomaalidu waxay tiraahdaa yaa eelka kii dhigay u dacwootoy gaari shala tagay kiishu sidatoy ninka aan runtu idin sheegay adigu iba biishaan buu yiri idin ma shaqeeyuu yiri wiilasha badda loo diiday oo maalin walba lagu laayo badda magaalada Boosaaso oo aan xeebta dhaafi karin oo maalin walba xargahooda la gooyo inta la qaato la afduubo oo bilcham iyo meel walba laga tuuro bilchamku asagu lacag siiya waa runtiis imaaraadka lacag siiya adigana waa lagu iibsaday qabyaalad baa maskaxda lagaaga xiray war adigu kii danta ku waday hadii aad taageerayn dhiigaaga illa cabo seebaad ku diidaysaa hadii qabyaalad lagu kala xirxirtay oo nin walba la yiri dawlad baad ma ninka dhahaya aniga shacabka reer Boosaaso iyo shacabka reer Gaalkacyo iyo shacabka reer Garowe ima siiyaan canshuura waa imaaraad baa isiya afcad ku yiri ee qoorta laga gooyo nin allaale iyo ninkii badda lagu qabto war baddan yaa iskale ma imaaraad iyo bilcham iyo Iran baa iskale maya asaga lacag ku siiya waa nin iibsan sababtu u diidaya adigu inaad doorato nin aan iibsanayn oo adiga ku shaqeynaya aan bilcham iyo imaaraad u shaqeynayn adna aadan u fahmaynin oo la iskaga garanayn waa sababtaas ninka u shaqeeya waa ninka asaga biila ma dalkaaga biil laga waaye xildhibaanadaada adaa biilan kara xataa adiga doorashadaada qabsan kara laakiinse lacag yar bay waxay ka qaateen nin badiina shariifaya macdantiina shariifaya ummadda dawladnimada aan ogolayn oo raba inuu wadankaaga curyaamiyo oo Boosaaso kadib Boosaaso curyaamiyo oo tii Berbera curyaamiyo oo tii maxaan ku dhaayay meel walba curyaamiyo buu lacag yar ka qaatay waa nin iibsan baad u iibsan tahay oo u rahman tahay maalin walba anigu 2 sano ka hor baan waxaan bilaabay war qof iyo cod ha laga shaqeeyo war dadku shacabku inay wax doortaan ha laga shaqeeyo war nimankaanayta way iibsan yihiin annagana way naxaraasheen inay naxaraasheen bay rabaan 20 sano dawladnimadu dhisnayd waxay u dhaqaaqi weyday niman xaraashan ama maamul goboleed ha joog ama Muqdisho ha joog baana hortaagan waana niman kooban shacabigana irbad baa ku mudan mid qabyaalad maskaxda looga waxeeyay mid bal ilaahay baan kugu dhaarshay nin adiga xaquuqdaadii hortaagan oo ku dhahaya doorasho wax ma dooran kadib adna lagu ma dooran karo war asaga la dooranaya haduu xataa qabiilkaaga yahay lacag buu haystaa imaaraad buu xiriir la leeyahay bilcham buu xiriir la leeyahay mareykan buu xiriir la leeyahay adigu maxaa marka ku talaa ilaa haduu xildhibaan noqdo adiga lacag ku siin maayo lacagta biilkiisana wax ka siin maayo oday baa soo dooranaya maalinta odagu soo doorta asaga iyo odagana isugu dambayso odagina lacag buu qaatay odaga laftirkiisana ama imaara waxa soo dirsaday al-shabaab ama waxa soo dirsaday Kenya laftirkiisa waa iibsaya odaga waa macni shacabki gaala lacag bixinaysa gaaladaas bay u shaqeeyaan ama arab bay u shaqeeyaan arabtaas aad diiranaysa adiga waa lagu sii diiranaya badaadii baa la diiranaya doorasho dadban wax la yiraahdo doorasho maahana waa iibsasho dadban weeye qofkii shacab ah ee Soomaaliya oo aan fahmayna de waa qof dulli ah qof kasto ku hadaaqa waxaasna waqaa'irul wadan ama qabiilkaaga ha ahaado ama maamul goboleed ha joogo ama madaxweynahaada ama baarlamaan ha ahaado qof kasto ku hadaaqa doorasho dadban wax la yiraahdo maahan doorasho waa iibsasho dadban weeye waa burburinta ummadda Soomaaliyeed weeye waa xaquuqda iyo dubinta dalka Soomaaliyeed weeye waa dalka Soomaaliyeed hal boobo gumaysina hal galiyo weeye dalkan Soomaaliyeed sidoo u burburay gumaysi dadban buu ku jiray wixii aad arkayseen oo oday Covid bacla ah ama Kismaayo wax ku doorta ama Garowe wax ku doorta ee maamul wax la dhaho goboleed soo doorta ama dawladda soo doorta dhamaantood waa iibsan yihiin nimanka saamileeda siyaasadda la baxay iyo nimanka jooga goboladana dhamaantood waa iibsan yihiin waa niman iibsan
nin iibsan madal ilaahay baan kugu dhaarshay nin iibsan madal buu ku hormarinaya ma asxaab buu ku sameynaya ninkii iibsaday buu u shaqeynaya adigana waxa laga dhaadhiciyay isku qabiil baana okay isku qabiil hadaan nahay adduunku dan buu ku wada hadlay maxaa adiga dan kuugu jirta isku qabiilka tiin ilaa ninka dantaadi ma wade waa nin asagu iibsan oo dantiisa wata oo caruurtiisa biilanaya ilaahay baan kugu dhaarshay markaad garab istaagtid maxaa danaho aad naftaadi u qabsatay maxaad mustaqbalkii dalkaaga u qabatay maxaad caruurtaada u qabatay maxaad aayahaaga u qabatay xuquuqdii dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada maxaad u qabatay adigu naftaada maxaad u qabatay waxa tahay maliibaanaha lagu liibaanaa tahay waxa soo haray gaas ninka la yiraahdo gaas wuxuu yiri maantay oo dhageysanayay wuxuu yiri ninka la yiraahdo dani wuxuu isugu yeeray buu yiri odayaashii way diideen buu yiri magaalada Gaalkacyo inay la kulmaan ammaanku kala hadli lahaa waxaan ka xumahay buu yiri in madaxweynaha la diido oo odayaashu diidaan inay la kulmaan odayaashu ka hadlaya waxaan jeclahay inay yihiin odayaasha leelkase gaasow madaxweynaha horta aad sheegaysid ma mid ka dhahaya qofkii isdhaqaajiya aragtiha lagu dilaa gaas horta awal baana ana waji ka sugeyn ninkii takada boosaasa gatay baa tahay ninka iibsan baa tahay ninka ugu dulisan baa tahay ummadda Soomaaliyeed ninkii magaalada Kismaayo maalinta ay soo galeen Kenya yiri annaga soo galinay baa tahay intuu idaacadaha soo istaagay kuwa iibsan kuwa ugu liitaa tahay waxa tahay nin kariini ku shaqeeya shalay wixii tagay nin aan ka warqabin baa tahay yuu madaxweyne u yaadani yuu dan u hayaa yaa saadu madaxweyne u ahay ma gadgadashada takadaha iyo cadawga Soomaaliya in la soo gasho dalka waryaa adiga iyo Sheekh Shariif marka aad xukumayseen dawladda dhexe oo Sheekh Shariifna uu ahaa madaxweynaha adiguna aad ahayd ra'iisul wasaaraha soo ma soo galan Kenyada badan loo saxiixay oo Umar Cabdirashiid iyo ina maxaan ku dhahay Cabdishakuur iyo ay groupkaas u saxiixeen oo maxaan ku dhahay to wadanka Soomaaliya gumaysiga la galiyay soo adiga ma ahay ninkii ana Kenya soo gal soo adiga ma ahan dakada boosaasa ninka saxiixay 2 sano iyo 9 bilood ka hor oo yiri waa la dhisaya oo maanta takadii boosaaso gabigeeda dhanba 10 lowr oo dhagax lagu rugay wardadka madad idinka aqli xibbaad mooda marka leedahay odayaasha inay ignore gareeyaan madaxweynaha waayo ma ahayn soo madaxweynaha sheegaysid ninka criminalka ah ee ummadda dhameeyay ee Gaalkacyo ku dhameeyay ee Boosaaso ku dhameeyay ee Garowe shalayta ku leeyahay gabdha iyo caruur masaakiina gaaskiikiyo maaha soo maaha ninkii madaxweynaha qaranka diiday oo 5 jeer inta loo yeeray diiday soo maaha madaxweynaha qaranka ninka diiday yoo madaxweynaha u yahay asaga ninkii xukumay ee qaranka Soomaaliya xukumay ee ummadda Soomaaliyeed doortay soo maaha ninkii diiday inuu u tago dini ma waxa la calaysa nin aan meel allaala iyo meel u haystaba jirin ee qarankiisiiba ka soo jeeda ee criminal ah ee taagan intuu Gaalkacyo dhex istaago hal la dilo oo aragtiya lagu dilo shalayna ay daraadna ay ka jawaabeen hadalkiisii Maria Calasti Garowe joogtay ay 3 haween ku dileen ay xambad iskaga fureen haween ka mudaharaadaya canshuurtii baa lagu kordhiyay maxabad bay watay waaya xabada loogu furo oo loo laayay islaamaha masaakiinta ee qoraxdaas xataa inaa suuq u dhisin Garowe banaankeeda barxadda ku gada yaanyada ee wiilka masaakiinta iyo burcad badeeda aad ku sheegteen ee qaar aad xabsiga ku gurteen qaarna ay tahriibeen gaasow masaakiinta ay korinaysa ee yaanya ka ganacsata ee yaanyadaas in laga gadanayo in kale aan la aqoon ee maanta dollarku uu marayo dollarka kaliya uu marayo 40 kun 50 kun 60 kun oo maxaan ku dhahay to 200 kun oo lacag Soomaaliya uu marayo oo sicir bararku cirka istaagay oo aysan xabadii ayaa hooyada masaakiinta gadan karin oo naan 20 sano meeshaad aad ku haysateen aad leedahay Agoosta loo dabaaldegaya bari maxaad Agoosta u dabaaldegaysaa ma dhiiga shacabka inaad daadisaan baa u dabaaldegaysaa ma inaad badii iyo takadii gadateen baa u dabaaldegaysaa ma inaad dadka xasuuqdeen baa u dabaaldegaysaa yaad madaxweyne u tiin gaasow
madaxweynaha ma afka laga sheegtaa criminal baatiin madaxweyne cida u tiin male oday idii yimaadana waa oday adinkoo kale oo criminal oo lacag siiseen odayaasha diiday danina oo yiri war anagu noocaas oo kale oo batagnaana way ku saxan yihiin sababtoo dani waa criminal qaa'inul wadan ah saddex jeer baa madaxweynaha Soomaaliya u yeero u diiday intaasoo mashaariic ah oo 3 sano iyo 7 bilood ay dawladdu joogtay naloo ballan qaaday buu naga hor istaagay bagurundo of jeebkiisa wixii ku dhacuu rabay iyo nimankii asaga meesha keensaday malaayiinta lacagta ay u bixiyay ku keensaday maxaa ku dhahay waxay u yeerinayeen buu diiday madaxweynaha qaranka marka umada aad leedahay agoosto u dabaaldega gaaskiikiyo mabooda iyo baraambalkooda iyo dhiigooda iyo gadashada badahooda iyo takadahooda iyo maxaan ku dhahay tacada u shaqaynta iyo imaaraad in gabdhaheena ay kufsadaan oo ay meel walbaba takadaheena ay xirteen miyaa loo dabaaldegayaa maxay tahay guusha loo dabaaldegayo 20 sano ay dhisnayd meeshaan 20 sano ma waxaan qabyaalad iyo Soomaali burburin iyo isbaaro iyo shacabka la laayo iyo dhibaato iyo qabyaalad iyo kala fogeyn iyo xasuuq iyo kufsi iyo takadiyo la xaraasho waxaan ahayn iyo kalluunka iyo macdantii badda ku jirtay ee Belgium iyo Imaaraad iyo Arab iyo baraayo lagu wareejiyo waxaan ahayn miyaa laga faa'iiday maxaa loo dabaaldegaya madil iyo dhacba loo dabaaldegaya maxaa loogu yimaadaa dani waa nin majnuuna sidaa oo kale odaga u imaanaya mamasid sidiisa oo kale mid majnuunaha aragtiha lagu toogto qofkii la arko ma waxaasaa loogu yimaadaa madaxweynihii qaranka laba shaqaynayaa loogu yimaadaa ma takadiiso maxaan ku dhahay ta boosaasan gadanayaabaa loogu yimaadaa ma gabadhaad aragtaan maxaan ku dhaho garowe banaanbaxayso xaqeeda sheeganaysa dhagax may tuurayn xabad may ridayn maxaa lagu leeyahay hooyooyinka maxaa xabadda loogu furo hooyooyinka iyo carruurta muxuu garowe gaalkacyo oga lahaa aragti ku toogta qofkaad aragtaan xaggee bay ka jirtaa ma garuub gaangiya mara ay samaysteen dad baa waxay dheen bishaaray maradan aad leedahay waa kufsi iyo dhac iyo bilaqo iyo hoog shacab baa ku heshiiyey maradan Puntland waxa la yiraahdo ama Puntland ee qurunka iyo qashinka iyo criminal gangi ay iskugu aruureen maradan cid samaysatay iyo cid isku raacday ma jirto aaran jaan baa samaystay dad aan taariikhda ka warqabin oo aan waxay og yihiin ba jirin la yiri qabiilkaaga halka degan oo nin qabiilkaaga aba gudoomiye ka ah ee dari dibir weyna la yiraahdo ama gaaskiiki la yiraahdo adeer macaan afkiina huurada la iga jeediya meeshaas waa meeshan anigu ku dhashay cid taariikhdeeda iga haysana ma jirto calanka riyaariga waxaan maradan qashinka ah ee dhiiga shacabka ee maxaan ku dhahaa reer sool iyo sanaag iyo cayn iyo maxaan ku dhahaa bari iyo mudug iyo nugaal ay ku daadsan tahay ee dhiig iyo qabka ah ee calanka maxaan ku dhahaa marada gumeed ah ee xariijimaha leh adeer macaan farolaa samaystay cid uu kala tashadayna ma jirto wuxuuna u samaystay dalka iyo diinta iyo dalka Soomaaliyeed inuu ku burburiyo u samaystay Soomaaliya hal calan bay leedahay kaasayna taqaanaayo isku raacday waxa kale oo dhan waa waxay criminal gangi samaysteen ma aha wax Puntland shacabka degan ay isku raaceen markaan anigu Puntland caayayana aniga shacabka ma aha waxaan caayay anaa kamida waxaan caayayaa waxa systemka sameeyay dhiigyacabka iyo criminalka systemkaas oo dhan baan caayayaa maradaana systemkaas ay ka timid waa mara aaran jaan samaysteen ciday kala tashadeenna male waa gangi criminal weeye waa dambiilayaal weeye qaranka Soomaaliyeed bay threat ku yihiin qaranka Soomaaliyeed iyo noloshayada war ayadoo qarankii laga soo tagin annagii ay qabiilka meesha noogu xaraysteen baaba ka baxsan la dani wuxuu taagan yahay aragtiha lagu dilo qofkii dhaqaaqa qofka aniga iga aragti gud bedelan oo dhaha war waxaad wadid wax sax ma aragtiha lagu dilo makaasa aniga calan ii ah makaasa aniga maamul ii ah makaasa aniga qabiil ila ah makaasa aniga system ila ah waa criminal gang wuxuu diiday dadka shacabka ee reer Puntland inay codkooda dhiibtaan dani baa diiday gaas baa diiday Adam Musa diiday
maxaan ku dhaha faroola diiday dhammaantood waxay ummadii Soomaaliyeed oo 20 milyan falsafaday u soo gudbiyeen waxay tahay inaan codkooda la dhiiban ee Imaaraad iyo Kenya loo shaqeeyo waxa kala gudoomiyayaasha kaleeto oo xaafadahana ayaga ku talaalay ayagana cadawga samaystay maradaana cadawga yiri samayso oo waa in maradan maxaan ku dhahayeeto u eg naag maxaan ku dhahayeeto ku dhacay naag xayl ku dhacay mara ay guntan tahay googaradeed aad mooday ama naag maxaan ku dhahay ilmo ku soo dilmeen cadawga u sameeyay gabra u sameeyay Imaaraad ba u sameeyay cadawga Soomaaliyeed ba u sameeyay Kenya u samaysay inta Soomaaliya necab oo dhan ba u samaysay ma ahan maro leelkase dhulbahante ogaadayaan leelkase dhulbahante Carab Saalax ma jeerteen maxaan ku dhahay dashiisle nimanka la yiraahdo magaceeda liibaan gashe gees gulle ilaahay kuuma darnaade nimanka la yiraahdo magacooda intaas inta isku raaceen oo la dhigay la yiri war mara astaan ah oo la idinku yaqaano samaysta maradeebaan ka dhignaa wax laga weydiiyay civil society-kooda iyo shacabkooda iyo aqoon-yahankooda iyo dhalinyaradooda ma aha dadka ay magacooda ku shaqaystaan mara wax laga weydiiyay ma aha waa mara faroola samaystay waa mara criminal ah waa mara gabre sameeyay waa mara ummadda Soomaaliyeed iyo ummaddaas halkaas degan lagu dibin daabiyay waay ma ahan astaan shacab ma aha shacabkaas kama jirtunta maradaas waa dadka igu yiri shacab baa isku raacay ma jiro adeer dhalinyaro yar baatiin iyo qaar qabyaalad madax martay iyo qaar jaahiliin ah ma jirto waa la yaqaanaa markuu faroola sameeyay maradan riglimaha leh asagaana u bilaabay gudoomiyayaasha xaafadaha iyo qabiilada calanka Soomaaliyeed ahin calan laga dhigto oo waliba laga weynaysiyo cawaale calankii qaranka Soomaaliyeed ee ummadda 20 milyan iyo 18 gobol ay isla yaqaanay ee qaramada midoobay nooga taagnaa iyo maalin aan xorownay qabiil walba maalin uu xoroobay in loo dabaaldego waxa ka shaqeeya Aaranjan iyo Faroole iyo Umar Cabdirashiid iyo Gaasow adiga oo criminal ah oo qaa'ilul wadan ah oo dambiile ah oo Kenya oo badayada nagu haysato soo gashay wadanka Soomaaliyeed taariikhdu waa mudan waana jira marqaati leh calalkaasi waa shaati Faroole ka dhamaaday oo dhiig ku daadsan yahay waa mara dhiig la weeye waxa soo haray kelmadaas odayaashu inay u imaadeen madaxweyne ma aha adeer madaxweyne waa mid magac baahsan ma ahan Gaasow ummadda Soomaaliyeed waxa rabtaan afka uma gelin kartaan intaas baan uga gudbayaa madaxweynaha qaranku waa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ummadda Soomaaliyeed asagay doorata asagay jeceshahay boqolkiiba 89 ummadda Soomaaliyeed gobol kasto joogta ninka ay dooratay oo jeceshahay oo rabto oo jidkii ay u doorteen ku taaga waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo weeye kaasa madaxweyne awlal amriga iyo Gaasow asagaadna diideen inaad u timaadaan 4 jeer buu idin yeera 5 jeer 5 jeer baa diideen ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa idin kala xisaabtamaya taas maanta inaad ku calaacasho odayaal baa diiday dani adeer dani waa nin waxa weeye criminal ah oo gacan ku dhiigle ah shalana wuxuu la mideeda kala dadka dambiilayaasha ee aqliga xun ee kaniiniyaasha ku shaqeeya sida Gaas iyo Faroola iyo ilaahay kuma darnaa dani iyo Xasan Sheekh iyo isma akhristaan waa wax sababta waa wax maskaxdi ka guudhay war shalay waxaad adigu samaysay adigoo aan akhrisan horta is akhriso gartiina akhris marka aad gogosha imaanaysan gartiina akhris war marka leedahay odayaal baa diiday ninka la yiraahdo Gaas ninka la yiraahdo dani oo u imaan waayay gaalkacyo odayaasha leelkase haddii ay diidaan xaq bay u leeyihiin sababta madaxweyne oo ma aha waa nin maxaan ku dhahay awalna qabyaalad baan iskugu nimid oo waxaan niri Soomaaliya way burburtay qabiil aan wax u dhisano soo waxa faantay maahan oon iskugu nimaano ilaahay kuma dar qabiilnimadiina annagii baan nagu dulmiseen waa nagu disheen ciyaalkeygii baad ku layseen
تكناها يجي بعد كوك قدرتين معدن تيجي بعد كوك قدرتين عيال كيجي بعد برعب بدل الله وذا قرصدي قبلها يجي سدح جرذها بعد كوك فصتين dalka yaga iyo qarankaygii baad kaga hortimaadeen waa diideen dawladnimo Soomaaliyeed hal iskuul oo lacag la'aan noogu midna dhisan qabyaaladii aan wax kula dhisanay hal isbitaal ma haysano oo lacag la'aan canshuurta waa naga qaadaan waa maxay waxa madaxweynaha aad sheegaysid madaxweyne horta mid weeye magac baasanama laakiin xataa gudoomiye qabiileed ma istaahilo mana ahan oo laga leadership-ka ayo jifada ka qiimo badan dani وكريمنال جانج شلو وحولها محل دهاية محا إلهي كوما لكلا تك نو مور قبيل ذنبي نو مور قبيل ذنب قال السليباني شلو وحولها دني إلهي كوما درناده برلمان كصومالي ذنبي بيكالين وذنبي ليال سرعي بيكو طنتين رئيس الوزراء بيردين waxaan maqli jiray isma arke Islaandaan isma arke wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh Abdurrahman Xaaji Xuseen war adiga waxaad adigu samaysay si qof ugu eedaysaa war adigu horta futadii miyaa ka hadashaa dadku afku ka hadlaaya nimankan gaangiga ee garow saldhigoodu yahay afka ما فتضي كهالان كار ومضوا مسكحة مدحو كسو باحده كبعدين أفكي كدها يا قلبي كهالان وحالي من دعيرك انت حار كيمد هذا لها هذا الكود ورس آخرست قاس كيكيو يو دريو وحان كريمنال كايو جو قروي اس آخرست سوري qof baan ka furaya albaabkee isuga qoodhin xiradin qof baa albaabka ka furaya yara suga وما حاشا وقاد ويدي وحوالا باتين وحوالا يا كل شيء مركا وحان ربا رالي هذا بشارة ودنيد الله دور عبد الرحمن واديات بنكو سلامة يا ولالك قالي سودو ايد وناكسن نا وشيك راقيو سعدية waxaa tiraada way iga furtay way soo wacaysaay life ba ku jiray marka waxaan u baahanahay in aad maxaan ku dhahaayeeto aad is xisaabisa waryahay ma la imaqlaa horta ma la imaqlaa waxa loo baahan yahay in aad is xisaabisaan aniga nimankaas intaasaan uga gudbayaa waxaan leeyahay ilaahay kuuma darnaade is xisaabiya inta la idin xisaabin intiinaan hadlin is xisaabiya meeshaan anagu ma rabno maxaan ku dhahaayeeto waxa la yiraahdo magaceeda doorasho dadban doorasho qaloocan doorasho maxaan ku dhahaayeeto doorasho lama dhahay waxa la dhahaa gumaysi dadban baa la dhahaa doorasho waa qof iyo cod ilaahay oo may 3 degmo ama 4 degmo muqdisho kamid ah doortaan xildhibaanada Soomaaliya ka soo baxaya awalba muqdisho lagu dooran jiray hadday shacabku doortaan markii odayaal xun oo ciiday ka mas'uuliyiin oo magaaladii maalintii ay ninka doortaan ay ugu dambayso shacabka Soomaaliyeed shalaan ku doortay maxaad ii qabatay ninay dhihi karaan oo ay maxaan ku dhaa muqdisho waxa jooga muqdisho kaliya hadii lagu doorto iska daa boqolaalka magaalo kale oo xortaaye muqdisho waxa jooga daarood baa jooga haweeyaa jooga dir baa joogta dadka jooga boqolkiiba 80 waa Soomaalida kale hawiye kaliya muqdisho ma joogaan dir kaliyana ma joogto daarood kaliyana ma joogto meel mix ah oo Soomaaliya oo dhan matali ka dhawaa muqdisho maanta maalinta la joogo 10 odayna ayada ka qiimo badan xaafadaha muqdisho in kuraasta la dhigo lacala waa hadii wax kale laga fursan waayo
laakiin oday dambe annaga wax noo dooran mayo al-shabaab berri u yeerayo nin maxaan ku dhahayo to lacag uu soo siiyey dani imaaraadna lacag ay soo siisay oo shalay afkiisa ka dhahayay annaga kuraastaan ku fadhino imaaraad baa naga baxsha mikrofoonadan ku hadlayno imaaraad baa naga baxsha nin burcadbadeed ah ama se burcadbadeed ma jira ee kalluumaysta ah oma doodi karno waa inaan hadalka aan yeelnaa imaaraadka afkiisa ka lahaa ninka biila oo soo doortay oo lacagtu ku soo baxay siiyey buu adeer u shaqaynaya shacabka Soomaaliyeed mas'uulka may aha afkoodayna ka cadeeyeen nin doorasho qaloocan lagu soo doortayna doorasho ma ahana waa gumaysi dadban weeye shacabka Soomaaliyeed waa inay ka kacaan kana dhidhiyaan intaas waa intaas waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo Khadiija Maxamed Diiriye boqolaal nin baad ka karti badanta hadalka cadna waa geesinimo dadkuna 2 jeer ma dhintaan hal mar hay dhintaan wixii aad xaq aad u lahayd war shacabka Soomaaliyeed waxa ka mas'uula baarlamaanka shalay hadii la idinka dulbooday oo madaxweynihii qaranka loo igmaday oo ummadda Soomaaliyeed nimankii say rabaan ha ku yimaadeen qalloocnayd ku yimid ay doorteen oo maxaan ku dhahay to u hiiliye cadawga ummadda Soomaaliyeed oo yiri gumaysi dadban oo doorasho lagu sheegay hal la galiyo wadanka oo ay garab istaagay maxaan ku dhahay nimankii dalgad badgad diinga dumargad ee isku sheegay madaxweynayaasha qabiilada iyo maxaan ku dhahay saamilay siyaasadeed iyo maxaan ku dhahay saamiga la sheegay waa adiga naftaadiyo dhiiggaagii baa saami lagu qaatay hadduu hiiliye maanta hadduu idin garab taagaya baarlamaanka Soomaaliyeed oo madaxweynihii qaranka uu doortay ee mandate-ka loo siiyay 4 sano waa inaad xaquuqda shacabka aad u raadisaan nin walba oo baarlamaanka tuugada ma 4 tuug ma ahane inta kale waa inaad sida Khadiija Diiriye u hadashaan waa inaad hadalkiina cadaysataan intay rabta ha qaadato waligeed iyo alleed baa lagu dari jiray doorashada markii ayadoon doorashada dhacayn ee ay xulasho dadban wax la yiraahdo gumaysi dadban u dhacayo oo odayaal al-shabaab iyo imaaraad iyo balaayo iyo yamyam iyo qadaad weyn u shaqaynaya ninay soo doorteen malaayiin lacag qaatay baa lagu dari jiray 6 bilood iyo 7 bilood Sheekh Shariifan wax allaala iyo wuxuu noo qabtay jirinin ba hal sano ku darsaday iyo waliba 6 bilood maxaa lagu diidayaa doorasho qof iyo cod oo shacabka la gaarsiinayo maxaa lagu diidayaa in loo maxaan ku dhahayeeto lagu daro waqti loogu daro yaa diidi karase baarlamaanka Soomaaliyeed oo cid diidi karta ma jirto adinka sharciyada haysta adduunkii oo dhan baa gadaal loo dhigay sababtoo ah adinku suugaanta miinaan keenin 7 bilood wax 6 bilood ku siban baa shaqada la qaban ilaahay baa keenay dhibaato timid coronavirus baa yimid waa in lagu daraa waqtigii dawladda ka dhumay waa in shacabka Soomaaliyeed loo daneeyaa waa inaan nalagu qasbin annaga gumaysi dadban doorasho lama dhaho waa gumaysi dadban nin iibsan war afkiisu idinka yiri nimankan biila lama hadli karno afkiisa idinka yiri ma nin noocaas oo kale annaga xildhibaan noo noqonaya ma nin noocaas oo kale annaga madaxweyne noo noqonaya ma nin cadow soo doorta annaga xildhibaan iyo madaxweyne noo noqonaya shacabka Soomaaliyeed ma yeelayaan Khadiija Diiriyana waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala afka kaama gooyo geesinimaduna waa in yaro cagaha dhulka lagu hayo ninki cirka hayo uu soo dumi ninki beel caalam ay wax maxaan ku dhahay ta siin jirtayo adeer beesha caalam waxa ku soo siiso annaga waxa naga qaad annagu dastuur baa leena system baa leena baarlamaankan ummadda Soomaaliyeed ka mas'uula madaxweynahan ay bayna mandate siiyeen waana sharci darro hadduu madaxweynuhu ku raaco wax la yiraahdo xulasho dadban cadawga ummadda Soomaaliyeed nimanka u shaqeeya cadawga hadduu ku raaco madaxweyne Farmaajo waa sharci darro kursigiisuuna ku waayaya mar damba shacabku inay ku qabaan maxaan ku dhaarajo ka qabaan buru ku waayaya aniga ugu horeeya waxaan taageeraya 13 sano madaxweyne Farmaajo taageeraya madaxweyne asagoon ahayn baan u campaign gareynayo taageeraya 13 sano taageeraya wallahi maalintaas ay ugu dambaysa maalintuu yiraahdo maxaan ku dhahayeeto gumaysi dadban baan ku raacaya ninka dhahaya war ninki baarlamaanka waxa ay ku sheegeen qabiileedka iyo garowa kalaha
ninka isiya mikrofonadan ku hadlayo ninka biilka isiya baan anagu u shaqeynayo hadalkiisa yeelayna ee canshuur nama siiyaan reer gaalkacyo iyo reer boosaaso iyo reer maxaan ku dhalaas caanood iyo reer buuhoodle iyo reer baran iyo hadaaftimo adeer macaan ninkaas aniga iba matalo doorashada waxaasi ma ahan waxaas nin ku yimidna waa nin cadow wato waxaan doonaynaa shacabka Soomaaliyeed intii laga gaaro inay doortaan baarlamaanka intii la dhigo kara kuraastana la dhigo berrina waa laga si maalinba meel baa la tagayaa meelo ka badan baa la tagayaa in ka badan baa codaynaysa adduunyada meel shacabka dhan wada codeeyaan ma jirto intii laga gaaro oo siyaasad ahaan iyo nabadgelyo ahaan lagu gaaro waa inay codeeyaan shacabku oday berri al-shabaab u yeeranayo oo saa dambe maxaan ku dhahayto ninkii lacagta soo siiyay u caga juglaynayo oo ninkii kaleeto oo maamul qabiileedka fadhiyay oo Kenya u shaqeynaya imaaraadka u shaqeynaya u caga juglaynayo ninuu soo doortay xildhibaanna noo noqon mayo baarlamaanna noo noqon mayo namana matalo madaxweynena noo soo dooran mayo shacabka Soomaaliyeed gacantooda ha eersadaan fartooda dhexda ha ka qariinaan ayagu dambiga ha yeeshaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan lama gadan karo Faadma Bashir yes cid aan baarlamaanka Soomaaliya cid uu ka haybaystayaysa jirin cid uu ka haybaysto waryaa dawlad ma ahan dawlad ma ahan wax ula shaqo loocan wadanka burburaya ha burburo inta uu nin xula shaqo loocan noogu imaan lahaa ee dani iyo imaaraad iyo axmed dhuxulayste ha burburo ha lagu kala tago xor baan ahaanayna waryaa markaana waxaan dawladaha lagu sheegaya aanan haysan xor baan ahayn ma imaan karin Ethiopia maxaan ku dhahay madaxtooyada Soomaaliya warlord ha noo jooga haduu rabo nin walba wallahi oo billahi oo tallahi inaysa ku dhicin way baqi jireen sababtoo ah wadan fawda ah maanta laakiin waxa lagu soo gabaraya nin xulasho gumaysi lagu keenay ee dawlad isku sheegay ee criminal ee afkiisa ka dhaxaya ninka mikrofoonka ii gada oo biyaha ii gada oo midkan ku hadlaya ii gada ee baanta ka dasiinaya hadalkiisa la yeelaya afkiisu ka yiri umada Soomaaliyeed dhageysato ma nin noocaas oo kala dawlad idin noqonaya dawlad ma aha waxaasi mana yeelayno ha burburto ha soo kaxaystaan nimanka isku sheegay saamilayda siyaasadeed iyo kuwa ayay wax ka burburayaan war shacabka Soomaaliyeed oo maxaad ku qabteen dawladnimada Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka hor ilaahay baa asaga idin keenay waryaaya maanta Muqdisho 20 sano dhisnayde ilaahay baan idinku dhaarshay ilaa carta hal iskuul lacag la'aan miyaa ka hesheen war hal iskuul lacag la'aan Farmaajo ka hor miyaad ka hesheen war hal maxaan ku dhahay isbitaal lacag la'aan miyaa ka hesheen war maxaa ka hesheen ay idin qabteen dhiigiina ay dhuuqi jireen dhalinyaradiinu inay tahriibtay ka shaqayn jireen wadankiina kalluunkiisa in la gurtay ka shaqayn jireen takadiina imaaraad in lagu wareejiyay ka shaqayn jireen ma waxaas dawladda waxaas oo kale idin soo wadaan ha yeelinina ha burburto wadanku xor buu ahaanaya wallahi haday burburto xor buu ahaanaya ma yeelayno doorasho dadban ha soo weerartamaan yuud ha soo kaxaystaan ha burburiyaan annaguna si qabiil walba meeshiisii buu joogayaa imaaraadna uma imaan karo waa dilaynaa mooryaantayada dilaysa qabiil walba mooryaantiisa dilayso hubaysan wallahi baysa imaaraadna ka shaqaysan karin joogina karin laakiin dawlad been ah ee maxaan ku dhahay xulasho gumaysi lagu keenay iyo maxaan ku dhahay qabiil xaafadeed madaxweyne sheegtay ee criminal ah ee cid dooratay aysa jirin ee shacabka Soomaaliyeed madaxa ka garaacaya ee dhalinyaradii Soomaaliyeed barcabadeed ku sheegaya ee intii kale ay tahriibeen oo aan shilin siinayn ee aan iskuul lacag la'aan u dhisayn ee hooyadii 9 bilood caloosha wiilka ku soo disho 20 sano ay korinaysay 20 sano oo markaas yaanyada wax ku soo bartay uu tahriibayo hadii kala madaxa lagu dhufanayo hadii kala al-shabaab uu noqonayo isqarxinayo ma waxaas dawladda waryaa ma waxaas dawladda ninkii carta maalintii la doortay meesha fadhiyo maalin walba lacagta ku gadanayo oo wuxuu qabanaya aysa jirin war ma waxaas dawladda iyo doorasho adeer macaan wax ma idin sheega baarlamaanka Soomaaliyeed ama taariikhdaad galeysaan ama taariikh madow baad galeysaan madaxweyne Farmaajo waxaan ku leeyahay wadanka adaa meeydheed lagu siiyay adaa lagu doortay adiga maxaan ku dhahay la yimid maxaa la dhihi jiray sheeg barnaamijkaas lagu qancay
inaad maxaan ku dhahay ciidamada mushaarkooda bixinaysid inaad doorasho qof iyo cod wadanka gelinaysid inaad wadanka nabadaynaysid barnaamijkaaga ninka diida oo aad maxaan ku dhahay yiraahdo doorasho gumaysi baa la galayaa haddaad ku raacdo adeer maca ninkaasa wadanka ka masuula wadankuna wuu burburaya anaa ku sheegaya ciidan boo dawladan ba aaminaysa adigana ku aaminaysa ma jirto ummadda Soomaaliyeed way ku jecel yihiin waxaan ku leeyahay baarlamaanka Soomaaliya maanta carcar bay wadaan garab istaag siday carcarta u wadaan oo u qaateen roolkoodii sidii madaxweynayaashii hore doorasho dadba wax la yiraahdo iyo madal dadban iyo quran iyo baqti iyo sharci jabin ah oo gumaysi ah ee criminal ah ha raacin hana yeelin beel caalam wax la yiraahdana waxaan ka xorowna 60kii gumaysi dadban bay rabaan inayna gumaystaan dawlad been ah oo macdantayada ku gurtaan oo dhalinyaradayada ku laayaan oo dawlad been dawlad lama dhaho dawlad waxa la dhahaa tan shacabkeedu doorto ilaahay oo may doortaan 700 oo qof oo shacab ah oo lacag la siin may doortaan 700 oo qof ilaahay may doortaan dawlad taasa la dhahaa shacabku gacantooda ha eedaan ilaahay oo may kuwii badda gatay soo doortaan bari ayaga tuuri kara sababtoo ayaga doortay ninku dhahaya aniga imaada dooran lacagtaydaan ku imid ninkii uu keenayna uu lacag siinayo waxaas ma dawlada kale tan lacagtaas ay soo siiyeen qaarna al-shabaab uu bixiyay waa arkayseen odayaasha wixii isku sheegay al-shabaab kaalay inay dhaheen toobad keena ma waxaas dawlada adeer macaan ma doonayno dawladnimada maxaan ku dhahaa ma ahan waxaan u baahanahay baarlamaanka Soomaaliyeed maanta ilaahay taladii buu hadeelsiiyay tubtii buu haleysiyay awoodoodii waxaan maqli jiray maroodiga awoodiisa waa laga qariyaa maanta qiyaamaha la tusaa war awoodiina waa la idinka qariyay awoodiina isticmaala madaxweynihii qaranka chief staffkii ahaa maxaan ku dhahay taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliyeedna waa idin garab taagaya shacabka Soomaaliyeedna waa idin garab taagaya ha baqinina go ahead wadankana adikaale baarlamaanka Soomaaliyeed mandate baad u haysataan baarlamaan kale inuu idin bedelo oo qof iyo coda dastuurka Soomaaliyeed bay ku qoran tahay shacabka in lagu cisho awoodda gacantooda waxaan leeyahay baarlamaanka Soomaaliyeed meesha aad marinaysaan aad iyo aad bay ugu faraxsan yihiin shacabku maanta maalin ay idinka taageersan yihiin shacabka Soomaaliyeed ma jirto nin walba oo baarlamaanka Soomaaliyeed ku jira oo sida qadiijo banaanka u imaada ee cadeeya maxaan ku dhahay mowqifkiisana shacabka Soomaaliyeed meel buu ugu qornaanaya noloshoodana waa la siinayaa abaalkooda waana la idin soo dooranaya sababtoo ah haddii aad shacabka Soomaaliyeed ay arkaan inaad adigu ku kalsoon tahay bari maxaan ku dhahay ilaan shacabkii bay qadiijo hadda waxay u dagaalamaysaa shacabka Soomaaliyeed waxa soo dooranaya golaha shacabka oo bedelaya qof iyo cod mid ku yimid bariya diidaya nin adiga xaqaagu ku ogolaaday waa dooranaysaa barina nin walba xaqaaga noo ogolaaday barina waa dooranaynaa taasa idin sheegaya laakiin in aan anagu nagu kalsoonayn ma dooranayno waana sharci darro waana criminal mana ahan dawladnimana uma aqoonsanayno sababtoo ah sharcigii bay jabiyeen dawladnimadii iyo wixii lagu heshiiyay dastuurka baa la jabiyay dastuurka ma ahan in maxaan ku dhahay doorasho dadban iyo xulasho dadban waa gumaysi dadban mana yeelayno shacabka Soomaaliyeed ma ogola xaqooday doonayaan waxay doonayaan dawlad u shaqaysa waxay doonayaan dawlad aan u shaqaynin shisheeye ninkii shalay garowa ka hadlaya wuxuu sheegay annagu waxaan u shaqaynaa biyo nimanka biilka nasiya waa runtiis nimankii shalay keensaday oo lacagta malaayiinta ay kursiga ku fariistay oo maxaan ku dhahay tadaniina niman baa keensado malaayiinta kursiga ku fariistay uu ka soo qaatay madaxweyne federaal iyo mid maxaan ku dhahay xildhibaan waa isku wada mid ma doonayno nimanaan annagu keensanaan doonaynaa ama xildhibaan ha aado ama baarlamaan ha aado nimanaan annagu keensanay oo fartayada aan eedno haddaan xataa qaldanno oo ummadda Soomaaliyeed dad qalada soo doortaan dadka annagu kuwaasaan ku kalsoonahay xaqayaga inaan heldaan ku kalsoonahay waana sharci dastuuri ah adduunyada xagee lagu arkay beel caalam wax la yiraahdo haddaysan gumaysi ahayn oo aysan nimankan shala keensan oo aysan wadankayaga inay dhacaan oo gumaysigii 60kii aan ka baxnay oo dadban doorasho qaloocan doorasho dadban waa gumaysi dadban weeye haddaysan ahayn wadamadooda waxay dhahaan xaquuq baan u raadinaa shacabkayaga waxay dhahaan waxaan maxaan ku dhahaa dimuqraadiyad baan raadinaa xagee lagu arkay nin dhahaya doorasho dadban baan u ololeynaya nin beel caalam isku sheegayo Ingiriis iyo Talyaani oo garab taagan waa gumaysi dadban
shacabka Soomaaliyeedna inay yeelaan male awoodu waa ayaga waa inay garab istaagaan nin walba xuquuqdooda u soo dhicinaya meelu jooga shacabka Soomaaliyeed والله بيس الدولة إذين نقرين أو بالله بيس الدولة إذين نقرين إني بربرته بان كشقينينا أو يدونته سببته أهواهر جميس الدولة معها حول الشق الله عن جميس الله عن ويه دولة معها ومد عرور تالا بعد بدأت الله جو شجع حبسية الله جو جرو ويلش حبسية الله جو فوله إلهي كوما درنا ذي الشباب كوكو بيلا ويه نمان كان حل بعنا يوم حكوا داية تمام الحافظة دي أنا ما كيسة ويه أحمد مذوبة أو طبعا شير ليري اللي جبنا ذي دحشي أو دحش الدبية أو مانوال بقضياش هي صقيرة كل جورة عماشة اللي يرادا كسمايو نمان كجرب تاجنا وحبك قبنين إلى الدولة نمان يلا يشرع يجي صار حجرات أو هي اللي يعني كسر الدرجة كسعدي وجميس ضبان شعب كصومالي وإنا كعان إنها نفران وكريمنا الجانجيس أرور صدي أديات باردي سلامية صوماليا هالنوراتو صوماليا هب مدودو صوماليا حرودو صوماليا إلهي سبحانه وتعالى عدوا كإلالي إيد وراكسن بايد الله يا إيد وناكسن أمد الصومالية لما أنت الميلاد شوكتان بقى صوماليا يقول يستو نسو مري ومسحة إله نسو مري ومسحة إله أي مروة إله